السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال كلانتي وعن او وناكسن دلهانتين با ميل كاستا واد جوجتان يسو والبواد نولا سعوتان با وحانو دلنا هيالكني وا تلفزيون كعالمي سوماليدا إثيوبيا ES TV ood alaabahadahan oo kale taad uga barateen in aan si toos ah hawada idin ku soo gudbino barnaamijkani nolosha xayawaanka daawadayaal barnaamijkana nolosha xayawaanka ayaa waxa alaaba idin soo diyaariya waanigoo ah Cabdirasaaq Ibrahim Class Cabdirasaaq Daaja barnaamijyadii hore nolosha xayawaanka waxaan ku soo aragnay noolayaasha oo wajahaya halista ay galaan marka ay aad u yaryar yihiin waxaan daawanay iyagoo galaya dunida qaangaarka hadda xayawaankii yaryara waxa ay u baahan yihiin inay hooyashaan meel ay ka heli karaan waxyaabaha nolosha aas-aasiga u ah waxa ay kaga dhuuman karaan cadowga ama waxa uu ahaan karaaba hooy ay dhaxanta ka galaan haddii xayawaanku uusan lahayn goob isaga khaas u ah waxaa ku adkaanaysa in uu sii noolaado barnaamijkana nolosha xayawaanka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee guryaha xayawaanka waddanka Zambia dhashi aydu hadda waxa ay jiraan 4 bilood marka ay dhashu gaadhaan waqtigan aydu waxa ay ku soo wareegaan ooga oo dhana si ay u xaqiijiyaan goobta ay leeyihiin iyagu xilliyada qalalan in ay wareegaan oo kaliya ayay ku heli karaan cunto ku filan oo ay ku quudiyaan 12 yaryar oo iyaga kamida
maalin iyo habeenba aydani waa kuwo midba midka kale uu isku haleeyo si uu uga badbaado cadowga. waxaa soo muuqda waraabayaal waana ayda cadowgooda qadiimiga ah. dhuwaagu waa wax khiyaano badan, waxa uuna doonayaa inuu qaato waxa ay aydu soo dushaan. hal ay iskama celin karo waraabaha, waxa ay kaga adag yihiin oo kaliya koox ahaan. kani ma ahan dagaal oo kaliya, laakiin waa nidaam qadiimi ah oo ay aydani ku xakameeyaan waraabaha. kuwii yaryara waxa ay ku soo beereen kuwii waaweynaa maadaama oo ay tirada aydu badatay. dagaalkan u dhaxeeya ayda iyo waraabaha waa mid ay ku gacan sareeyaan aydu. iyagoo u dagaalamaya wada jir, aydani waxay meel saareen cadowgoodii qadiimiga ahaa. dhasha iyana dagaalkan waxa uu yahay xeer muhiim ah oo ka mid ah noloshooda ugaarsi. difaacashada aagga ay leeyihiin iyo badbaadada dhashooduba waxa ay si weyn ugu tiirsan tahay wada shaqayna. hadda waxa ay leeyihiin hooy noloshooda wax ayaa iska bedeli doona. waxaa soo galaya xilli roobaadkii, waxaana goobtan imaan doona ugaadh aad u badan. waxaana laga yaabaa wakhtiga isbedelay inuu iyaga u ballan qaado nolol fududa. laakiin nolosha fudud ma ahan mid uu helo. noolahani waxa uu ku noolaan karaa buuraha joogoodu sarreeyo. noolahan oo ku nool waqooyiga Ameerika waxa uu si xor ah u noolaadaa bilo yar sanadka oo dhan. waa noole u baahan inuu cuno ubax badan si uu u sii noolaado xilliga jilaalka. taa macnaheedu waa in ay sameeyaan kumanaan socdaal oo soo laalaabanaya una dhexeeya hoygooda iyo goobta ay ka helayaan ubaxa. gurigiisa ugu wanaagsan waa mid ku xidhan goobta uu joogo, waxaana faa'iido badan u ah marka uu helo ubax u dhow hoygiisa.
laakiin nuula kasta oo noocan ah ma heli karo fursad noocan oo kale ah midkan oo yar dhadigna ah waxa ay ku nooshahay goob ka fog ubaxa maalin kasta waxaa sugaya socdaal dheer ah waxa ay socon lahayd boqolaal meel haddii ay u socoto si toosa socdaalkan ay sameynayaan daal kaliya ma ahan ee sidoo kale waxa ku duugan halis badan waxa jira noole iyaga basaqoota kaasoo leh xirfado ugaarsi oo badan laakiin ugaadha uu doonayay inuu qabsado laf ahaanteedu waa mid aad u aqli badan waa ay qeyliyayaan si ay uga badbaadaan weerarka uu ugaadhsadahani ku soo qaadi rabo mar kasta noolahani si uu u soo gurto ubaxa waxa uu raadsadaa jida uu ku badbaadi karo xataa marmarka qaar waxa ay sameeyaan xatooyo kuwa iyaga u dhow goobta waxa ay durbo ku dhargaan ubaxa mana doontaan laakiin waxa ay xadaan waxa kuwa kale ay soo gurtaan ugu horreyn waxay iska eegaan in midkii soo gurtay uu aaggan ka fogaaday waxayna kadib xadaan wixii ay soo guratay midii kale marka ay xatooyadan samayso waxaa u badbaadaa tamartii ka lumi lahayd wakhtigii ku bixi lahaa waxayna ka badbaadaa halista ugaadhsatadu u geysan lahayd marka ay midda ka cunto waxa ay aadaa kuwa kale xaqiiqdii arrinta kaliya ee aad ku noqon kartaa tuug guulaysta waa in aan lagu arag laakiin nasiib xumo midii iska lahayd waxa ay xadayso ayaa hadda aragtay waxayna midii xadaysii qaadatay ubaxii iyadoo mulkiilihii lahaaba uu hortiisa taagan yahay waxaad moodaa inay iska caydhisay tuuggii ka xadayay ubaxa laakiin taasi ma ahan tuugga keliya ee halkan jooga waxaa halkan ku nool sidoo kale qayb adhiga ka mida waxayna cunaan wixii ay muddo dheer soo uruursanaysay si kasta oo ay u qayliso riyahani waa ay sii wataan cunitaankooda noolahani tani waxay u tahay masiibo mana ilowdo ilaa ay keento ubaxyo badan ka hor inta uusan xagaagu soo gelin mooyaane
marka aan dib ugu laabanno xidharka qaaradda Australia quraanjadani waxa ay ku nooshahay bartanka xidharka barwaaqada ah kooxda qaabilsan ugaarsiga waa ay baxayaan si ay u soo helaan cunto ay ku noolaadaan quraanjadana tiradeedu sii badanayso marka ay soo qabtaan waxyaabaha ay ku sii noolaanayaan sida deerta qaarkooda Midland laakiin waa ay ilaaliyaan meel kasta oo ay aado laakiin inta badan marka ay koox aad u shaqaysaa meel tagto waxa soo jiita cadow badan caradan ayaana ka mid ah cadowga ay quraanjadu leedahay waxa ay doonaysaa in ay keedka quraanjada wax ka xado laakiin hal shay oo laga qaatay quraanjadani ma ahan mid keedkeeda wax u dhimaya laakiin kooxdan cadowgooda ayaa intan ka badan waxaana sii badanaysa halista ay gelayaan markasta oo ay noloshooda guul ka gaadhaan waxa hadda goobta soo galay boqortooyo kale oo quraanjo ah taasoo doonaysa in ay balaadhsato xukunkeeda quraanjadii soo duushay waxay isku diyaarisay sida ay ula wareegi lahayd gurigan midkii waardiyaha ahaa waxa uu bixiyay calaamad uu ugu baaqayo kooxda kale ee guriga ku jirta waxa ay ka soo yaaceen hoygii si ay gurigooda u difaacdaan haddii difaaca ay gurigooda difaacayaan ay ku guuldarraystaan boqortooyada meesha sii deganeed waxaa lagu qasbi doonaa in ay goobta firaaqeeyaan qaar ka mid ah kuwa hoyga difaacaya waxa ay isticmaalayaan hubkooda ugu cajiibsan waana aysidhe iyaga noloshooda muhiim u ah taasoo jilcisa goobaha ay ku taagan yihiin duulaanku hadda waxa ay kooxda gurigooda difaacaysa noqdeen weerara ugu dambaynna hoygoodii waa ay badbaadsadeen waxaa laga yaabaa in kooxdani ay shaqaale badan ku waayeen markii ay difaacayeen gurigooda laakiin naftooda ay hureen waxa u baxsan doona jiilkooda dambe kooxda difaacan karta goob barwaaqo ah waxa ay leeyihiin awood ay ku sii haystaan xidharkan sannadaha soo socda qabsashada waqtiga dheer ah waxa ay u sahashaa kooxda meel degan in ay si dhib yar u gartaan guryahooda
daanyeerkani waxa uu ku nool yahay cidhifka saxaraha Senegal xilliga qalalanna waxa uu socdaa ilaa 4 bilood mana jirto wax u haray oo cunno ah. midkan oo lab ah da'diisuna ay yar tahay waxa ay ku qaadataa saacado in uu helo wax uu cuno xataa waxaan uu haysto ma ahan mid la wada cuno ee waxa laga dhex dooranayaa wax yar oo muhiim ah lana cuni karo inta kalena waa la tuurayaa. qaar kale waxa ay gaajadooda isku ilowsiiyaan raamsiga waxyaabaha aanay horay u cuni jirin kama fiirsanayo in kooxdani ay socdaal galaan maxaa yeelay waxa jira kuwa badan oo u baahan in la quudiyo waxa ay cuni lahaayeen waxa ugu daran biyo haddii daanyeerkani uusan biyo cabin waa uu dhimanayaa. kooxdan daanyarada ah waxa ay ku tiirsan yihiin khibradda midka ugu weyn waxa uu horay uga badbaadiyay baarasidan oo kale ah waxa ay u baahan yihiin in ay u socdaalaan webi in badan u jira waa socdaal 10 mayl ah kaasoo leh cadceed aad u kulul. socdaalkoodii waxa ay ku soo gaadheen webiga jiinkiisa laakiin janaalkii ay ka cabi lahaayeen waa uu qalalay. daanyeerkan oo ah labka hogaaminaya kooxdan waxa uu ku dhaadhacay janaalkii waxa uuna bilaabay inuu qodo kan yarna waxa uu daawanayaa si uu wax uga barto maxaa yeelay waxa uu maanta bartaa waxa ay faa'iido u tahay jiilka dambe. biyo ayaa ku soo ururaya halkii uu qaday waa waqtigii ay heli lahaayeen biyo ay ku badbaadaan. dhammaan sagxadda webiga waxa ay ka samaynayaan god iyagoo raacaya tusaalaha hogaamiyaha waxa uuna mid kasta ka samaynayaa laas uu ka cabo. iyagoo sii kala dhaxlaya khibradooda laas qodaal daanyeerkani waxa hooy uusan ka guuran ka dhigtay goobtan aadka u qalalan.
waddanka Zambia aydii waxa ay sii noolaayeen waqtigii adkaa ee xilliga qalalan waxa ay samaysteen aag iyo hooy ay si badbaadsan ugu koriyaan uguna difaacaan dhashooda waxa ayna ka hortageen cadawgooda qadiimiga ah hadda hoygoodii waa uu isbedelaya waxa imanaya koox aad u ballaaran oo loogisi ah kuwaasoo soo raacay roobabka halkan ka da'ay waxa ay lo'dani doonaysaa in ay halkan ka cunto caws ay ku sii noolaato maadaama uu ayna weli gaadhin xilligii ugaarsiga waxaa dhashan lagaga tegay gudadka ay biyuhu galaan halka kuwii qaangaadhka ahaa ay u kaceen dhinaca banka kuwa aan weli qaangaadhin waxa ay baranayaan habka loo ugaarsado kuwii waaweynaana waxa ay aad ugu dhowaanayaan lo'ogisida marka lo'dii ay carartay ayadu waxa ay isku dayayaan in ay kooxo yaryar u kala saaraan waxa ayna ka dhex raadinayaan mid jilicsan laakiin qabashada lo'ogisidu ma sahlana ayadu waxa isu caawinayaan si la yaab leh marka midi daalo midka kale ayaa soo baxaya oo hoggaanka orodka qabanaya lo'ogisidii waa ay weerartay waxa ay ku mashquushay in ay dhex orodo koox dameer farow ah iyo in ay keligeed gees u baxdo kadib waxa ay iyaga oo saddex ah samaysteen koox gooni ah waxa ayna ka soo dhex baxeen kooxdii badanayd badi aydii waa ay kala baxeen si ay u helaan mid jilicsan oo ay qabsan karaan laakiin hal ay ayaad moodaa in uusan hilmaamin xeerarkii ugaarsi ee u yaallay ayda waxa uu ku soo laabtay aydii kale si ay wax u wada qabtaan haddii ay isku yimaadeen aad ayay u adag tahay in laga baxsado
waa wakhtigii ay ku soo biiri lahaayeen kuwa yaryari waxaana dhammaan layskugu wada imanayaa xagga loogisida la dilay maadaama ay tiradoodu badan tahay kama baqanayaan waraabaha ka horreeya qaarka waaweyn waxa ay ku jiraan difaaca halka inta kalena ay cunayaan hilibka iyagoo si wada jira u ugaarsanaya aydan waxa u suura gashay in ay ku sii noolaadaan dhulkan waxayna ku guulaysteen inay hoy ka samaystaan dhulkan dhibaatadiisu badan tahay waa dhaxalka dhashooda waxaana ku noolaan doona jiilasha soo socda
guud ahaanba daawadayaal waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa waa barnaamijkan xiisaha badnaa ee nolosha xayawaanka waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo barnaamijkan soo saara mar kastaba waa saaxiibkay Cabdinaasir Cabdi Mahdi Mandela waxa idin la socodsiiya waanigu ah Cabdirasaaq Ibrahim Claas Cabdirasaaq Daaja sidoo kale waxa dhinaca habeenta qayb libaax la ka qaata waa saaxiibkay Ibrahim Cabdi Muuse dhamaanba waa bahda barnaamijkan nolosha xayawaanka oo si isku duban idin ku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh